kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta aan kaga sheekeyn doono dalka Eritrea. Waa dal aan nahay daris Soomaaliya hadda aan nahay daris aan nahay dhacana bariga Afrika ee muuqaalkeena maanta kusoo qaadan doona haddii taa markii kugu horeysa aan soo booqato waxaan ku leeyahay oo ku mahadsantahay booqashadaada subscribe noo saar like noo dheh asxaabtaada noo share garay hadda hor noo joogtana waxaan ku leeyahay ku mahadsantahay la joogaada muuqaalkan like noo saar adigana sidoo kale muuqaalka maanta waxaan kaga sheekeyn doonaa Eritrea dal aan daris nahay dhaca bariga Afrika ahna boqolkiiba 80 dad muslimiin ah Eritrea waa dal dhaca bariga Afrika waxay ka go'day Ethiopia magac ahaan Eritrea marka la Greek ayaa u bixiyay kelmadan Eritrea oo macnaheedu uu yahay badda cas maadaama ay badda cas dhacdo sidoo kale Eritrea caasimadeeda Asmara ayadana magac bixinteeda maadaama dadka Eritrea inta badan ay ku hadlaan luqadda Carabiga marka laga yimaado luqadaha qowmiyadaha dega Ethiopia Eritrea dega qowmiyadahaas marka laga imaado luqadda guud ay ku hadlaan inta badan inay tahay luqadda Carabiga kelmadda Asmarana ay tahay kelmadda midabka chocolate-ka ah oo dadka Eritrea midabkooda waa midabka chocolate-ka ee sida Soomaalida camal ah marka ay bixinta marka halkaas kaga soo gudubno Eritrea waa dal dhaca bariga Afrika waqooyi bari waxa ka xiga badda cas halka galbeedkan ay ka xigaan Suudaan ee hadda ay xaaladdu ku xun tahay والله Soomaalina way ku ceeboobeen muuqaalkan inta yarta ku daro Soomaalina way ku ceeboobeen maadaama Ethiopia Suudaan ay Soomaaliya soo garab qabata xagga waxbarashada ee dhalinyarada intii dagaalada wadanka iyo burburka xagga waxbarashada uu jiray ee wax badan Soomaalida ay ka caawiyeen marka Eritrea waxaana waa dal dhaca bariga Afrika waqooyi bari waxa ka xiga badda cas halka galbeedkan ay ka xigta Suudaan oo ay dagaalada la hareen halka koonfurna ay ka xigta Ethiopia koonfur barna waxa ka xiga Djibouti iyo Eritrea waxa jira muran ka dhaxeeya oo ku aadan jasiiradda la yiraahdo Dumeira oo ay degan dadka Canfarta ah Canfarta waa qowmiyado badan oo dego wadamadan la yiraahdo sida Ethiopia Eritrea iyo Djibouti ay degan marka qolyaha Canfarta waxay degan jasiiradda la yiraahdo Dumeira halkaas Djibouti iyo Eritrea dagaalkooda uu ka taagan yahay okay waxaan la marka 2008 uu dhacay dagaalkii u dhaxeeyay Djibouti Eritrea iyo jasiiradda Dumeira ay isku haysteen Eritrea badkeeda waa imisa badkeedu waa 117.6 kilomitir dadkeedana waxa lagu qiyaasaa 3.5 ilaa 4.5 milyan oo qof ayaa lagu qiyaasaa in dadkeeda yihiin 3 milyan oo kamid ahna waxa la lahaa dad muslimiin ah 2007 waxa dhacday in Eritrea ay ka baxday ururka midowga Afrika ee loo yaqaan IGAD sabab la xiriirta Soomaaliya darteed kadib markii ay diideen galista ciidamada Ethiopia 2007 ay galeen Soomaaliya maadaama ay isku fahmi waayeen ayaga iyo Eritrea iyo midowga Afrika saas darteed ay waxay kaga baxday ka bixitaan ku meel gaar ah laakiin waxay dib ugu soo noqotay 2023 ay dib ugu noqotay intaas oo sano waxay kaga maqnayd diidanaan ay diidaneed Eritrea in ciidamada Ethiopia ay galaan Soomaaliya halka qoli Soomaaliyeed ee Ethiopia ku soo hogaamiyeen inay wadanka soo galaan kuwa kale maanta ay leeyihiin walaalaheena Ethiopiaanka Eritrea ay ururka midowga Afrika kaga baxday in Soomaaliya ay galaan darteed ciidamada Ethiopiaanka okay 2017 hay'adda UNESCO waxay u aqoonsatay Asmara ay tahay magaalo dhaqan 80% dadka Eritrea waxaana wadada muslimiin ah 1990 markii laga hadlo taariikhdoodii hore 1990 waxa dhacday inay ku dhacday gacantii gumeystaha Talyaaniga oo Talyaaniga ayaa gumeystay kadib 1941 ilaa 1952 intuu dhaxaysay ayadana waxa la wareegtay qolihii maxkamada Ingiriiska la wareegeen oo Ingiriiska ayaa maamulayay 1952 waxa wixii ka dambeeyay qaramada midoobay ayaa go'aansatay inay ka mid noqoto Eritrea dalka Ethiopia oo markaas mashruucyo badan Ethiopia ay ka waday Afrika ay ku gacansiiyay qolyaha qaramada midoobay saas darteed ay Eritrea loo dhahay waxa tihiin qayb kamid ah Ethiopia waxa la cadin 1952 ayaa lagu daray 1962 waxa loo aqoonsaday inay tahay gobol rasmi ah oo kamid ah Ethiopia ayaa loo aqoonsaday Eritrea inay noqoto dagaalo badan kadib oo jabhadda xoreynta shacabka Eritrea jabhad la yiraahdo ay wadeen dagaalo badan oo dhiig ku daateen kadib waxa dhacday in 1993 loo ogolaaday afti la qaaday afti dadweyne oo la qaaday in Eritrea loo aqoonsado inay tahay dal madax bannaan oo 1993 ay sidaas ku noqdeen dawlad buuxda oo madax bannaan oo dhameystiran waxa madaxweyne ka noqday ninkii jabhadda hogaaminayay ilaa hadda madaxweynaha ka ah Isaias Afwerki ayaa madaxweyne ka noqday ma jiro xisbi siyaasadeed oo aan ka ahayn xisbigaas
madaxweynaha uu ka taliyo usoo dagaalamay xoreynta shacabka Eritrea usoo dagaalamay xisbi aan wadanka kama jiro wax doorashahana kama dhixin dhowr iyo soddonkaasna waa 1993 ilaa maanta wax doorasho ah oo Eritrea ka dhacay ma jiro markaa waa wadan soo xoroobay oo soo dagaalamay laakiin aan maanta wax dhaqaale ah wax horumar ah aysan ka jirin wax dhaqaale la yiraahdo Eritrea kama jiraan oo wadan baaba'san mana ka jirto xorriyad wax la yiraahdo kama jirto oo wadan doorasho galaynin oo hal inuu iskaga kursigii ku fadhiyo hadii sidaas ku soo socotana ay u eg tahay sida Djibouti inay boqortooyo isu bedeli doonto mar hadduu xukunka raago marka dambena boqortooyo isu bedelaa hadii shacabka aysan markaas وقالكن أنت سنة كسوق وجبية جعلها مركا الله يورد هاي لا يشن دقيقة ودنا وحنا هاي مقالكن وحنا جاي إنه هي مقالك كوبات ما تيجي نسوق مقالك على جراء وأصلا ما إن شاء الله أرجينا نسوق هذا ما سنتين حتى نقول صوت واحد نقول أمر الله وبصور حسوسنا سبسكرايب لايك شير وحوك معنا هذا هذا هرنا جوتنا حن كله وكم سنتين الجوج هذا كسر هذا مقالكنا ما أنت